hudheelku wuxuu naga kireeyey hoolkiibaa dadku yimaadeen qaar kaloo imanayana iriddaa horaa loogu sheegay in shirkii aanu jirin oo qaar badan la celiyey annagoo ku dhex jirana dushaaba nagala qufulayo waabanu yaabnayo waxaanu isniri maxabsi baa laydageliyey marka waa arrin aada iyo aada u fooran waana arrin sidii Siciidu sheegay dee ah ganacsatadu inay isxorayso sida hudheeladoo kale oo iyagaa ganacsiga iska lehe cid kale ma lehe ay arrimahaasoo kale aanay u nuglaan ee ka xumaynaya ganacsigoodii waxaanu annagu u qaadanay in sababta loo diiday shirka uu yahay mid keliya inaan dadka loo iftiimin xaqiiqada dhabta ah ee ku gadaaman saldhiga milatariga ee berbera wixii la sheegayey waxay ahayd khutaan iyo wax aan cilmiyeysnayn warbixinta maanta lasoo bandhigi lahaa sidii uu Siciidu sheegay wax badan bay iftiimin lahayd oo dadkuna ahay inay fahmaan waayo dadku hadday muhmiluuna geliyo aanay runta fahmin gadaal baa laga qoomamoodaa laakiin dadku inay ogaadaan xaqiiqada ayay ahayd waana warbixin cilmiyeysan haddaba maxay warbixintu sheegi lahayd waxay sheegi lahayd ooy ibafuri lahayd amba iftiimin lahayd xaqiiqada dhabta ah ee ku xeeran saldhiga ciidana berbera iyo dhaxalxumada la qiray ee ay kala kulmeen dalalkii hore u marti qaaday saldhiga ciidan waxay rafaguri lahayd noociyada kala duwan ee uu u kala baxo saldhigyada ciidan iyo saamaynta taban ay ku yeelan karaan nabadgelyada dalka nolosha dalka siyaasadda dhaqaalaha biicadda iyo deegaanka iyo foolxumooyinka daahsoon amba qarsoon ee hore loo arkay lana diiwaangeliyey ee ku keeni kara xumaan dhaqanka iyo diintaba wuxuu qoolaalku isdul taagi lahaa dhacdooyinkii suubsuubka ahaa ee ka soo baxay fadhigii wadajirka ahaa ee labada golo yeesheen iyo gabafkii sharci maamul ee lagu meelmariyey nuxurkii heshiiska xukuumaddu doonayso inay ku bixiso saldhiga milatariya berbera waxaa kale oo warbixintu qaadaadhigi lahayd dhammaan mugdiyada ku geedaaman iyo qaabkii guracnaa ay xukuumaddu sida bareerka ah ku waday bixinta saldhiga milatariya berbera